madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa si rasmi ah u furay maanta kalfadhiga koowaad ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaana ugu mahad celiyay shaqadii adkeed ay soo qabteen waxaana sida ballantu ahayd lagu madlanaa in codka kalsoonida la siiyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre madaxweynaha ayaa ka codsaday mudanayaasha codka kalsoonida inay siiyaan Ra'iisul Wasaarihiisa xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa codadkoodii kalsoonida siiyay Ra'iisul Wasaaraha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaana xildhibaanada federaalka ee Soomaaliya ay dhamaantood siiyeen codkoodii waxaana uu helay codad gaaraya 231 xildhibaan waxaan ka aamusay ebel waxaan qoraaday 231 Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u mahadnaqay xildhibaanada federaalka ee Soomaaliya isagoona sheegay in ay isaga iyo xildhibaanadu ay yihiin hal madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda sare iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaan maanta oo ah maalin taariikhi ah halkan uga mahad celinayaa guddoonka golaha baarlamaanka iyo dhammaan xildhibaanada sharafta leh sidii wanaagga iyo waddaniyaddu ku dheehneed ee aad codkiina kalsoonida ii siisaan waa maalin taariikhi ah inaad kulligiin codkiina siisaan mana ilaawi doono sidaas daraaddeed waxaan qirayaa inaan kulligeen isku nahay hal qof ama hal group oo ka shaqeynaya sida dalka Soomaaliyeed loo horumarin lahaa waana idinla tashan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaad ugu aaminteen xilliga mas'uuliyad qaali ah oo u baahan hufnaan karti iyo daacadnimo waxaana hortiina ka ballan qaadayaa wada shaqayn dhow iyo wada tashi joogto ah si aan dhammaanteen si habsami leh ugu gudano waajibaadka na saaran una xaqiijino waxqabadka shacabka Soomaaliyeed ay naga filayaan waxaan mar labaad u mahad celinayaa guddoonka baarlamaanka oo aan rabaa inaan haddana mar labaad hortooda ka sheego inay xukuumaddeedu diyaar u noqon doonto inay hortiina tibaado idinlana shaqayso waxaan mar kale u mahad celinayaa dhammaan xildhibaanada waxaa kaloon u sheegayaa gudoomiyaha maxkamadda sare inuu dastuurku in garsoorku uu ka madax bannaan yahay dowladda ugu dambeyntii idinkoo mahadsan waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo idiina sheego maanta inay tahay maalin taariikhi ah beej cusubna uu u bilowday ummadda Soomaaliyeed waana mahadsantihiin dhanka kale waxaa isla goobta lagu dhaariyay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre isagoo dhawaan xilka si rasmi ah ugu wareegi doona Ra'iisul Wasaarihii hore ee Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa u mahad celiyay mudanayaasha baarlamaanka sida kalsoonida leh ay codkooda u siiyeen mudane Maxamed Cabdullaahi ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeyay ay dowladdu u dhaqaaqi doonto dhanka dimuqraadiyadda wuxuuna intaa ku daray in dowladda ay xoogga saari doonto arrimaha dib u heshiisiinta dhismaha axsaab siyaasadeed iyo xoojinta la dagaalanka al-shabaab golaha shacabka waxaan runtii aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa inaad siisaan kalsoonida iyo ansixinta Ra'iisul Wasaare Xasan Khayre waxaan arkaa inay tahay unanimous 231 oo halkan maanta fadhida inuusan qofna diidin qofna uusan ka aamusin taas waxay muujinaysaa midnimadii Soomaaliya inay bilaabatay waxaan leeyahay dowlad walba waxay leedahay iyo xukuumad walbaba ama dowlad walba waxay leedahay hal ku dhig
halkudhiga dowladdan waxa weeye dib u heshiisiin iyo dib u dhis. Hani Ahmed, Jubaland TV, Muqdisho.